هذه أدوان فرح سنة مانت إن قوليه فلنت حزب كل ميال كان بدأ كيسي تشوجو شركة مانت وحق صاب سنة وديار جروجة دور شوي حزب أهان رأيال بدن أو حقوقه أو دنت قرن كاه أو دنت حزب كاه أو طلب شهد دور شهد أنا وين كدون قامنا أنا والله هيا ولا أورورين وحنا لورك فعل وقت كنا كانوا كتير وقت دورشوا مدحونه لوا كوفيد بحرية تي قرن كنا واحدنا ده تي حزب كنا واحدنا هاي إما كتلوا بدنا يواتيه الجلك حزبك كود هذا الكوا نبض حول بدنا وترانا علوسي ورنعيه بدنا dhaqaalu ugu adag yahay oo dagaalada caalamka ka socda faraha badan ee qasa ugu culus tahay Ukraine leh Xuutiyiinta halkan jooga leh iyo caalamka isku murugsan wayna saameeyay siyaalo badan awgood waxa si wanaaga Soomaaliland waa adkaysiga way taqaanaa iyo guddigiiska waa ugu ladanahay gobolka marka loo eego isbedelka lacagta ugu inflation-ka ugu waxay lahayd mahadiye inaynu weli ka deganahay oo ugu hooseyno geeska hore dalkeenu doorashooyinka maanta u galayo saddex qodob way shacabka iyo axsaabtu inay isla fahmaan oo ku galno ka koobaad waa nabadgelyada oo gacmaha isugu geyn gudaheena iyo cadawga ku tashanaya inaynaan doorashada hirgelinba waliba u diyaar garoobaya in 18 May ay khalkhal inoo keenaan kuwana oo toogahaynayna horna waa ugu toogahaynay cadawgana ka warwarmayna inaan daafacayno nabadda waxaa ku xiga qaabka uu qaranku u galayo doorashada waanu soo aragnay waa iska xanuun badan xumad bay leedahay laakiin waxaan ku talagelaynaa inaynu in badan ka ilaalino xasarad iyo caadifad gaarsiisa in doorashadu dhexdeeda ay khilaaf badan keento ay ummadda khilaaf keento shacbigu wuu codaynaya ninku doonaya codayn doonaa laakiin waxaa laga midaysan yahay doorashadu yaan khilaaf loo keenin dadkana yaan la gelin xamaasad caadifad dhinacay doonta haatee inaan dadka caadifadooda nin kursi doonaya aanu meel daran ka tuurin oo laga soo qaban kari waayo tan saddexaad waxa weeye doorashadu dhaqaalo badan bay u baahantay lacag 18 milyan kor u dhaafsan baa laga rabaa dawladdu si ay u hirgeliso doorashada iyadoo xaaladaas jiraan waxa dheer xisbiyadu dhaqaalaha u baahan doonaan iyo ururada galaya waa dhaqaale ku culus qaranka oo dhan si aynaan u darjiirin oo waxaynaan oo takliif ahayn dadkana u dhibin inaguna isu dhibin ururada iyo xisbiyada tartamaya waxa looga baahan yahay xagga dhaqaalaha in mas'uuliyad badan iska saaraan waayo dalka culays badan bay ku tahay iyo cidul saddexdaa qodob waa inoo sameeyey inagu maanta kulmiye ahaan halkan doorashadii waa galayna nasiib wanaag intay nolosha xisbiyada la sharaxana madaxweynayaashu sharaxan yihiin waa qolo aynu hore wada ciyaarayno aada isu naqaano tiim cusub oo talo maxay yeelayaa ma aha waxay la tahay inaguma cusbo dadkuna waa iskaranayaan murashaxiintuna waa iskaranayaan xisbaduna waa iskaranayaan intii doorashadii 17 ka dambeysay si dalku wuxuu dhacee waxaan isleeyahay shacbigu qof wal iyo xisbi waliba sidii u dhaqmay iyaga xukumi doona ninkii u xiray ninkii u howlhoolay ninkii hagardaamiyey iyo ninkii u hagar baxay shacabka qiimayn doona kulmiye wuxuu ku kalsoon yahay intii uu hayay xukunka oo laga soo bilaabo 2010 ilaa maanta inuu si buuxda oo warwarahan ugu guuleysan doono soo socotana iyo ta kale ka sii dambaysaba sababtu ma aha waayo isweydiin maaytaa waa ay xisbiga kale ee taariikhda leh 14 sano imika tan dhamaanayso ee labada xukuumadood iyo taariikhdii hore dalka waa ay xisbiga taariikhda leh
dalka awoodda oo qabtay marka intaa loo geeyo yaa ku dhararsan kara waa kuma xisbiga waan soo halgamay oo xorriyadiisa hore wax ku lahaa waa ay xisbiga odhan kara waxbaan daafacay imika oo dhibaatooyin ka dhacaan difaac ka galay lugtaan jiiday mooyaane waa ay xisbiga odhan kara marka xisbiyada tartamaya warwar kama qabno waxaan ballan qaadaynaa doorasho tartan hufan edeb leh turaalo leh oo dalka la gala ayaa kulmiye laga helaya natiijada oo la aqbalo waxaa lagu idhahdaa maxaad ereyga ugu celisaa dareen horaan qaba tii horaan ogaa wixii dhacay iyo halkay nala martay dadka qaarkii weli inay ku dhigan tahay inaan tii hore laga helin baa ayaa laga yaabaa inay qabaan ama ay ku dhaqmaanba markaynu intaa hore soo qabanno doorasho hufan edeb leh turaalo leh dadka codka wax loo weydiisanayo natiijadana waa in la aqbala nin kale aqbali maayo hadday shan codayso waa beentaa ood aqbali gar baa ku qabtay shicibkaa kula hadla anaguna shicibku hadduu idhaha cod qabtay bano waxba kama qabno waa in la hoggaansamaa aad iyo aad waa mahadsantihiin hawl badan baa inoo taalla tartankaasaynu maanta bilaabaynaa habluhu intii horena way soo halgameen ragga canaanta badan ku dhici doontaa shirarkana sidaa uu sheegay guddoomiyuhu waa joogto waa wadayna waa ka soo qayb galaynaa guddiyaa la samayn doonaa ilaa heer degmaa hawshaasaa inoo bilaabantay kalsooni badanna waa qabnaa xisbi ahaan iyo xukumad ahaanba inaynu shacabka ka helayno iyada oo si edeblaan waxu disayno aad iyo aad waa mahadsantihi